In ka badan 200 oo eedeysanayaal u dhashay dalka Talyaaniga ah ayaa lagu soo oogay inay ku lug lahaayeen dhoofinta maandooriyaha kokainta ayaa lagu xukumay isku darka 2,200 oo sano oo xabsiya. Dadka la xukumay waxaa ka mid ahaa senator hore oo ka tirsanaa golaha aqalka sare ee dalka Talyaaniga, ganacsato iyo weliba xubno firfircoon oo ka tirsanaa xukuumadda dalka Talyaaniga. Kiiskan ayaa muujinaya sida ballaaran ee maafiyada Talyaaniga saameynta ba'an ugu leedahay guud ahaanba dalka Talyaaniga, iyaga oo fuliya dambiyo isugu jira dil, dhac, kufsi iyo weliba ka ganacsiga maandooriyaha kala duwan. Giancarlo Vitali oo ahaa lawyer iyo weliba senator hore oo ka tirsanaa xisbiga Silvio Berlusconi ee Forza Italy ayaa lagu xukumay 11 sano oo xabsiya. Looyaradii iyo weliba xukaamtii gacanta ku haysay kiiskan waxa ilaalinayay booliis si loo sugo ammaankooda. Dadka la xukumay intooda badan waxay ka tirsanaayeen kooxda maafiyada reer Itaaliya ee lagu magacaabo 'Ndrangheta', waxayna kooxdani ka mid tahay kooxaha ugu khatarsan ee maafiyada adduunka, iyagoo gacanta ku haya 80% daroogada kokainta ee lagu kala iibsado suuqa madow ee qaaradda Yurub. Waxaana lagu sheegaa in sanadkiiba ay faa'iido ahaan u soo gasho in ka badan 49 bilyan oo dollar. Waxaana kooxdani aasaasay qabiilka reer Talyaani ee lagu magacaabo Mancuso, waana qabiil ka mid ah qabiilada ugu xooga badan caalamka aadkana looga cabsado, maadaama ay maamulaan isla markaana aasaasayaal ka yihiin maafiyada aadka looga boqo ee reer Talyaani ee lagu magacaabo 'Ndrangheta'.